ayaan la Cabdulaahi aadan wuxuu ka mid yahay xulka gobolka Liiban oo markaasi ugu ciyaari jiray kooxaha kubadda cagta ee markaasi deegaanka wuxuu u saftay xulka gobolka Liiban marar kala duwan ilaa ciyaartii u dambeysay wareegii xiisaha badnaa ee gobolka Liiban ay ciyaariyeen wuxuu u ciyaariyay nambarka 10aad laantii may dhaqaaqi jirin xulkani wuxuu maanta noqday sariiryaal hay'adda la dhacyan hooyo Foos Xuseen oo magaaladani Dowlacad ku sugan waxaan ku booqanay gurigooda markii aanu ogaanay xog ah in uu noqday wiil xanuun daashaday haddaba bulshada deegaanka ku dhaqan waxay hooyo Foos Xuseen ka codsatay in ay markaasi xanuunkan aan la garanayn ay la wadaagto culays badan oo saaran darteed waxaan weydiinay bal dareenkooda ayaan la xanuun fara badan buu soo maray ilaa muddo 7 bilood buu xanuunsan yahay quraan saar iyo jin saar iyo nooc walba waan u saarnay aqbalka Ilaahay wuu la jiraa waxba maxaan ku raacay uma waabayn hadda sidaan buu u yaalaa wax ma cunahayo dawo ma laha dhiig laan buu u yaalaa wax hadda maxaan ku raahday aniga ciyaalkaas ama ogeey aabana ma qabo dawladda deegaanka iyo maxaan ku raahday dhalinyarada waxaan ka codsanayaa in hadii isbitaal leeyahay haduu quraan leeyahay leegala qoosiyo oo leegala gacan qabto dhalinyarada xulka gobolka Liiban buu kamid ahaa dhalinyaradan baa dhowr jeer ay imaaday hada ayagana wax hadda shaqaale oo gacanta ka hayeen malaha laakiin booqasho dhowr jeer way soo booqdeen qof kale oo laakiin qarankii ka tirsan ama dawladda deegaanka ka tirsan oo soo booqday ama gacan ugu qabatay ma jirto laakiin dawladda iyo maxaan ku raahday deegaanka inta waan u baahan aniga tabar ma hayo waa awoon isagana saas u yaala goorma ayaa xanuunkan ku soo booday ilaa muddo 7 bilood buu hayaa soo furti buu saa u soo dhacay ayaan la xulka qaranka lambarka 10aad ugu dheeli jiray aduuna asaga ka dhax maqonin ma ay u aadi jirin Liiban ay bixi jirin inay ugu soo noqdaan oo ayaan la dhahan ma ogeey ma ina bixin jirin inta hadda ka hor asagoo naag aroos ku ahaan ayaantii uu Cabdulaahi Jiis joogan ila wiilka waa aroos oo ma jirto yiri uu baxaya maama baxan la sidii baa lagu kaxaystay oo kaxaysteen qarankiisa oo aadana raali baan ka ahaa ciyaartii u dambeysay wareegii kale loo ciyaaray waa ku jiray rag kuma jiray ma helin ku dambeysay marka farinta u dambeysay bulshada caalamka iyo muslimiinta caalamka in dhageysanaya aad u gudbinayso maxay tahay iyo dhamaan dawladda deegaanka madaxweyne ahaa inta ka hooseysa ahaa dhalinyarada ahaa waxaan ka codsanayaa ninkaasi 26 sano u jira halkaas uu iska yaala in leeyla booqdo in leeyla daaweeyo in leeyla ogaado ayaan ka codsanayaa ayaan leh asxaabtiisii mid kamid oo markaas nala wadaagay xanuunkiisan ayaa isna bal ka waramaya ayaan leh waxa uu ku xasuusto iyo taariikhdiisii aad ugu xumahay xanuunka walaalkay ayaan leh oo dhalinyaradu u taqaano ayaan la hoobalo laakiin jigjiga iyo xaga iniista bay ugu yaqaanaan isagoo waliba de waxyaabo badan iyo rafaad badan u soo maray dhalinyarada gobolka Liiban iyo inuu soo ciyaaro xulka maantana de wax garabkiisa soo istaagay aysan jirin ka dhalinyar ahaan iyo xataa ka maamul ahaanba dhamaan dadkii xataa de markuu caadiga ah caafimaadka qabay uu iman jiray ee oran jiray kaalina raac hooyadii u iman jiray waalidkii de intay u imaadaan dhigi jireen na bixiyo maanta xataa salaan meena ugu imaanin gaar ahaan maamulkii maalin walba de markay ciyaar looga baahdo kaxayn jiray maanta wax u imaaday ma jiraan waxaan ka codsan lahaa dhammaan dhalinyarada iyo maamulka inay wiilka walaalkeena mustaqbal fiican u lahaa mustaqbal ifaayo lahaa in caafimaadkii Ilaahay baa haya laakiin la garab qabto maadaama ay xaafadiisu dan yartahay